waxaana leeyahay Soomaali ha noolaato cadowga Soomaaliyeed ha jabo dhibaatada Soomaaliya ay ku jirto ha ka baxdo dadka Soomaaliyeed ee maanta imaqlaya waxaan hawada u soo marinayaa arrin aad iyo aad xasaasi u ah oo lagama maarmaan waxaana hor yaalla dawlad horaan jabinay wixii ka dambeeyey dawlad fiican waa dhisan weyn sababta waxa weeye dumintaan naqaanaa ee dhismaha ma naqan waa inaan ka taxadirnaa marka mar dambe in aanan dawlad dumin waa inaan iska ilaalinaa kuwa isku dayaya in naloo soo isticmaalo oo shisheeyaha soo isticmaalo ee aan doonayn in aan dawlad buuxda oo cagaheeda ku taagan ee adduunka la jaanqaada aan noqon wararka intooda badan waxay u dhacayaan warar Soomaalinimo annaga waxaan nahay reer Hiiraan waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer Hiiraan ka maqan ayadiyaana baadigoobkeedu ku jirnaa waxaana rajaynayaa inaan si fiican u dhammaystiro ilaahay hadduu yidhaahdo reer Hiiraan waxaan u sheegayaa haddaad doonaysaan in magaciina oo jiro masiirkiina oo jiro meel walbo aad joogtaan mid ahaada haddii kale sida maanta taallaa imaanaysa in nala kala qaybiyo oo nala xukumo in nala kala qaybiyo oo wixii carruurteenna aan siin lahayn dad kale ay carruurtooda siiyaan taas waxay keenaysaa marka arka sida Hiiraan ay u taallo wejiga ay leedahay waxqabadkii laga rabay iyo horumarkii laga rabay iyo farxii ay ummadda farax gelin lahaayeen baa maqan waxaan ka soo tegey dad iyo dal baaba dhibaataysan dhibtaasna waxay ka timid mas'uuliyad xumo maamulka ragga haya cisbitaal nooma dhisna caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirto beerihii abaaraa ku habsatay jilaal xoolihii waa dhammaadeen wax bini aadana oo maamul sheegta oo ummaddaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto waxaan leeyahay marka dadka mas-uuliyiinta ah oo mas-uul isku sheegga ah ee aan la dhihi karin waa mas-uuliin hadday dadkooda wax tari waayeen dadkoodana soo raaci waayeen sidee rabaan dadka inay ku hoggaamiyaan daraad waa maqlaayey wax dabageed oo ku hadlaayay walaalkay aqoon daraa u geysi qofka anna waa caynayaa oo walaalkiisaan ahay cali guudlaawana soo dhawow u leeyahay waa ayaan darro weynoo meesha taallo wey ninkii guriga la deganaa oo la dhashay oo taladiisa diida nin kale uu taladiisa qaadanaya wuxuuna rabaa inuu dadka hoggaamiyo macquul maaha haddaa caytantay afkaa ku caytantay adaa iskale anugu ma caytamo laakiin waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda aa haysanin u qalma maahin intaas waxaa ii dheer haddaan ku soo noqdo barnaamijka ummadda Soomaaliyeed Soomaali dhibaatada maanta haysa waa garan kartaan weli lagama fariisanoo lama dhihin dhibaatadana haysa xaggee ka timi
dhibaatadana hayso waxay ka timid ma aha madaxweynayaashii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad kadib iska bedelay dalka inay wada xumaayeen waa fiicnaayeen laakiin dhibtu waxay ka timid xilligii kala guurka annagoon soo marin ayaan dowladnimadii ku boodnay xilliga kala guurka marka wuxuu leeyahay astaamahaasoon la buuxinin haddii dowladnimo la aado dowladnimadii ma dhismayso mar walba waa jaban tahay cadowgii ummadda Soomaaliyeedna uu ka faa'iideysanayaa dowladdaas jaban waana og yihiin internationalka waxa laga booday ee mar walba ay dowladda ka dhismi laada waxaa ka mid ah haddaan fasiro xilliga kala guurka in la habeeyo sharcigii in la habeeyo baarlamaankii in la habeeyo ciidamadii haddaan waqtiga xilliga kala guurka intaa la dhisin dowlad looma gudbi karo hadda waxaa taagan ciidamadii oo kala daadsan baarlamaankii oo afadlan ku shubo iyo sharci oona jirin maxaa dhacay koorta suprema nooma dhisna ama supreme court wax la yidhaahdo meel la aado iyo meel la wajaho midna male marka arrimahaas oo dhanaa laga booday dowladnimaa lagu degdegay dowladnimadii lagu degdegayna waxay keentay in faraqa la isku dhego haddii sharci lagu kala bixi lahaana sharciga oona jirin haddii ummadda sharci markuu jiro waa kala baqdaa maxaa dhacay sharci saxa markuu jiro qofka waxaa la taagayaa maxkamad dembigiisuu qaadanayaa hadduuna sharci jirin dalku waa baaba hadduusan ciidan jirin waxaa meeshaan yaallo sharci ciidanka u dhisan oo ah ciidan hadduu jirin dowlad ma dhismi karto dowladdana ma istaagnaan karto hadduuna ciidan jirin duruufahaas oo dhan marka waxay kabi lahaayeen dowladda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed horumarka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa marka in waxaas dib loogu noqdo oo la saxo si loo helo dowlad cagaheeda isku taagta ka adag cadowgeeda magacii sharafka ummadda Soomaaliyeed naga kacdoonka shacabka hiiraana nala yiraahdaa kama tanasulin arrintii aan u istaagnay nin walba uu dhagahaaga haddaba ku hayso naga dad u yimid in la gato maahin waana ka weynah in nala gato lacag waxay tarta male karaamaa wax tarta sharafaa wax tara masiirka ayaa wax tara waxaan raadinaynaa karaamo iyo masiirka ummadda reer hiiraan marka lacagba ma goysada qaymo lamida maba la helaayaba intaas in marka dadku isgeliyo waxbay gadanayaan waa la gadanayaa waxaas dadka maskaxdooda inay ka saaraan aan rabaa waxaan nimid xamar waxaan u nimid dowladda heshiisaa noo wada socda heshiiskaas waa mid u faa'iideynayo ummadda reer hiiraan heshiiskaas wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago excuse me heshiiskaas heshiis iftiin u soo baxay oo noqon doono ummadda reer hiiraan waayo waxaa kaloo meesha la garab dhigay nimankii waa la xirxiray nimankii dhibaatay ku jiraan cidna nama xirin ayaan daro dadka warkaas wada si fiicanaa naloo soo dhoweeyey oo sharaf leh gogol qurxan oo gogol Soomaaliyeeda ayaa naloo fiidiyo fariisanay annagana dadaalkayaga wuxuu noqon doonaa
in aan ka dadaalno inuuna qaranka dumin, inaan ka dadaalno wixii duminayey inaan nidhaa ka joog, waxba ma ogin. soomaaliya dhibaatadan 40 sano ay ku jirto waxaa keenay qarankii aan duminay, mid kale yaan la dumin. intaa waxaa ii dheer waxa waaye inaan ka talino samaha Soomaaliyeed, inaan ka talino dadka Soomaaliyeed oo aan ka turjurno baahidooda dhinac walba ay tahay, waxbarasho hadday tahay, hadday caafimaad tahay, iyo hadday dhaqaalo tahaba. waxaa aad u badnaa baarlamaan dhan oon soo dhisannay inuu ku soo dhismay laaluush xaaraan, meesha markuu yimidna oo xaaraan daydayay asagana. soomaalidu waxay u bixisay magaca la yidhaahdo fadlan ku shubo. fadlan ku shubo intay jirto baarlamaan la yidhaahdo soomaaliya inay hagaagtayaan laga yaabay. hadda waxaa yaalla oon xamar ugu imid isqabad dawladda. waxaan u taagannahay in isqabadkaas aan ka dhex raadinno heshiis soomaali inay meel wada aaddo, in laysu tanasulo. waxa adiga aad la ciishoon tahay ama aad la xanaaqsan tahay ummadda Soomaaliyeed dhibaataa ka soo gaaraysa. marka dadka in loo tanasulo oo shacabka loo tanasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ayaa xaqiiqadu dhabta tahay. nin walba hadduu meeshiisa isku adkeeyo marka uusan dadka fiirin, waxay noqonaysaa dana shaksiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo. waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka Soomaaliyeed. waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka Soomaaliyeed. waxaan u taagannahay qaran inuuna dumin dambe. waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweyne Farmaajo sida uu noo soo dhaweeyey ee sharaf kale. mahad celin weyn oo ballaaran aan ka bixinayaa ummadda reer Hiiraan oo dhanna waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo Soomaalinimo leh naloo soo dhaweeyey. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha weli waxba kama hayno, laakiin markaan is aragno ayuu wada hadalku noo bilaaban doonaa. Farmaajo waxaan ugu nimid oo reer Hiiraan ah waa noo dhameeyey, wixii qabyacana waa la dhamaystiraa. waxaan leeyahay marka Soomaaliyeed waa u jeedaan meesha arrin u taallo, arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay. waxaa shaqadaas qaban waayey maamul goboleedyadii. waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ugu guuleeyo un qabto, oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dawladda ay gacnaha isqabsato in ilaahay igu hanuuniyo. Soomaaliya qaxootiyay noqotay, dhibaataa ku dhacday, dalal ajnabi bay tagtay, ilmihii baa ka baaba'ay, ayagii baa baaba'ay. in dib loo fiiriyo loo turaa la rabaa, in la iska qabsada lama rabo, in la heshiiyaa la rabaa. kuwii halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto, daawo ma haystaan, cunto ma haystaan. waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro, laakiin ma ahayn in laga fikiro waxaan aniga ma ogoli iyo waxaan aniga ma ogoli. taas maaha masiir Soomaaliyeed laguma dhisi karo. waa in wax la isla ogolaadaa.
وإن وحمل سردقة وإن ليسوا تنازلا سيد عنا قانو سو تنازلنا وكله ونقرن كوجو تنازلنا والأمة جوجنا ماشى دت سومالي عن هاي نجمع حكتان دولة نمذا waxaad dawlad u tihiin dadka u shaqaysaan waa ceeb dadkii aad u shaqayseen hortooda inaad isku qabsataan waxaan leeyahay marka farmaajo waa is aragnay arrintaas waxba kama uu qabo soomaalinimo uu istaagay ra'iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonaa asagana waxaan leenahay soomaali fiiri u istaag soomaali wixii ku dhibaaya laq hasii dayn wax badan oo ku dhibo waa jiraan waa ognahay laakiin laq haddaadan laqi karin waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno wax isu sharaxno si wanaagga loo gaaro marnaba looma dulqaadan karo isqabqabsi dawladdii hore iska qabsatay farmaajo tii ka horreysay tii kale iska qabsatay mid walbaa isqabqabsata yacni dhibaatadaas isqabqabsiga leh oo daba dheeraatay waxay ku dhacaysaa ummadda soomaaliyeed markay ku dhacaysane waxay ugu dhacaysaa qodobadan soo socda socially economically iyo politically ugu dhacaysaa macnaheeda markaan fasiro mujtamacii ummaddii ayuu dhibta ku dhacayaa siyaasiyan gaaladiina isu keendiri jirtay ee ka faa'iidaysanaysa annaga soomaali ah haddaan isu tanasuli weyno ismaqli weyno shisheeyaa naga faa'iidaysanaya waa inaan hor istaagnaa marka qarannimadayada lama soo faragelin karo hadda faraha lagula jiraa internationalka faraha kula jiro qaran buuxa ma noqon karna marka si aan qarannimo buuxda u helno waa inaan annaga isu sabarnaa oo isu tanaasulnaa oo waxaa naga weyn iyo culayskana saaran sidaan iskaga qaadi lahayn aan ka fikirnaa waxaan warkayga ku soo gaabinayaa waxa waaye soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya cadowgeeda allaha qabto soomaaliya meel kastay jirto kuwa koreeya allaha ka dhigo dawladnimadana allaha noo ilaaliyo inta ciidamada beledweyne la geeyey mowqifkayga waxaa waaye ciidan waa ciidan anaa nin ciidan aan ahay ciidankaas beledweyne la geeyey hadduu si soomaalinimaa u shaqayn waayo waa soo celinaynaa hadduu soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn